Qunsulka guud ee Safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ahna safiir ku-xigeenka safaaradda Bishaar Ugaas ayaa xilli habeen ah u kurgalay xaaladda dhaawacyadii Soomaaliyeed ee ku jira isbitaalada magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Qunsulka waxaa booqashadiisa ku heliyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga, Axmed Sheekh Cabdullaahi, iyo xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi Turkiga. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. maanta waxaan soo booqannay haddana dhaawacyadii ex control afgooye ee la keenay magaaladan Ankara ee xarunta dalka Turkiga. dadkaasoo ahaa 16 ee gabar ka dhimatay, 15 kale cisbitaalka ay ku jiraan, kuwa ugu badan ayaan maanta joognaa. dadkaasoo xaaladoodu ay ka soo reynayso kuwii ex control afgooye qaraxi ka dhacay. xaaladoodana dhaqaatiirtu sida ay noo sheegeen, dadka qaarna ay baxeen oo bannaanka ay ka soo aadaan si loo dhayo, qaarna ay weli ku jiraan ku jiraan weli cisbitaalka. xaaladoodana ay aad uga soo reynayso marka laga reebo 2 qof oo weli ICU-da ku jira. waxaana ilaahay mahadiisa inay dadkaas heleen gargaar iyo dabiib saxa oo ku habboon. waxaana runtii mahad mudan inaan u mahad celinno dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga ah oo gacan weyn si dhow baa waxaan ula socnaa xaaladooda ka safaarad ahaan iyo ka jaaliyad ahaanbo. runtii waxaa mahad iyo ammaan iyaguna mudan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Turkiga guud ahaantood, oo dadkan walaalaha oo Soomaaliyeed ee dhibaatada ku gaartay Soomaaliya u soo wada gurmaday. hadday ahaan lahayd duco, hadday dhaqaale ahaan lahayd, hadday dultaagnaasho ay dul taagan yihiin oo xaaladooda ay la socdaan ahaan lahayd, ayagana runtii waa u mahad celinayaa. safaaradduna door weyn oo dowladeed oo muhiima ayay ka qaadatay, siday xukuumadda iyo dowladduba u ballan qaaday inay dadkan Soomaaliyeed ee garab taagan tahay ilaa meesha u dambaysa. kaalin weyn oo mug leh ayaan ka qaadannay. ilaahayna waxaan uga baranaynaa in ilaahay caafiyo ummadda Soomaaliyeedna. waxaan u sheegaynaa xaaladoodu inay aad iyo aad uga soo reynayso oo ay heleen daryeel fiican oo caafimaad. intaas markaan uga baxo, Qunsul Bishaar ayaa mid u dul istaagay bukaanada isagoona ka wareystay xaaladooda iyo baahiyaha xilligan ay qabaan. waxauna dhinaca kale u mahad celiyay dhaqaatiirta sida hufan ugu shaqaysay. bukaanadii iyo dadka la socday ayaa aad u soo dhaweeyay booqashada qunsulka uu xilligan habeenka ugu yimid. waxayna intaasi ku dureen in xaaladda bukaanadu ay aad u soo fiicnaanayso, halka qaar kalena isbitaalka laga bixiyay sida ay sheegeen. Cabdirashiid Nuur Ibraahim.